iyo Ethiopia iyo Eritrea isba waxa u dhaxeeya waa isku dad waa isku qoys siiba Tigreega iyo qolyahan Abyssinianka Eritreanka way islee waxa weeyaan kolkii hoos loo sii xoqo waa hal qoys oo Soomaali kamid ah oo kale qolada Tigreega ah iyo qolada Eritreanka inta carabta mooyaane dadka noocaas marka hadana cadaawada adduunka ugu weyn inay dhax taalo blorta maxaa sababay waa inaan niraahno wadankani waxaana ku keenaynaa sheekadaas maanta meesha joogan iyo news halka hadda maanta joogo si marka dadku ay nolol qabsadaan Eritrea waxay ka mid ahaan jirtay Abyssinia ama qowmiyadda Ethiopia maabkeeda ka mid ahay jabhadihii dagaalamayay inay wadankan Ethiopia ka go'aan u dagaalamayay inay dhargigii ridaan u dagaalamayay ka mid ahay TPLF ta ONLF EPLF OLF Oromo Liberation Front jabhadii noocaas ay wada dagaalamayay in walba gobolkiisa inuu goosto uu rabay iyo horta Eritrea qayb ka ah Eritrea way goosatay Eritrea markay goosatay wax khayraada iyo wax macdan ah iyo wax ay leedahay toona ma jirto Eritrea marka ayada waa jabhad uu wadan lagu wareejiyay dhargiina meesha ka baxayo TPLF baa qabsatay TPLF waa qowmiyad yar marka Ethiopia qabsatay laakiin maskax ciyaartay oo qolo waliba iskaaga isu maamul korkan aan idin ka haysto qaacida la yiraahdo keentay qaacidadii Soomaalida ku xogaa qabowsatay qolo walba gaarkeeda loo gooyay Oromo iyo wixiga intaana hoosta gumaysiga way ka waday Eritrea waxay ku tiri nimayahow Tigreegayo wadanka qalalan ee gobolka yar ah ee badda garab jiifa yaan wadankii aanu ka goostay intaas ay soo hadhay 120 milyan ee Ethiopiaanka ah hadii ay dekadaha isticmaaleen oo canshuurtooda iyo wixigooda aanan waxaysanin waxba anigu dheefi maayo lacagtu ay naga dhaxayso waxyaabo fara badan ay naga dhaxayaan dekadahana ay naga dhaxayaan oo isticmaal waxa aynu kala leenahay wax yar u baahan noqdo baasaboorada iyo wixii la mid ah oo han noqdo iyo calaamad iyo wixiga adoo si yar confederation oo kale aynu isku ahaan wada shaqayn iyo kala shaqayn oo Eritrea marka iyadoo ay rabto dan ahaan inay ku tiirsanaato dadkaas 120 milyan ah dhoontooda wixii mari lahaa iyada loo soo maro way sida barwaaqa sooran ku noqoto Ethiopia dabcan ma aysan 120 milyan ahayn way ku dhadhaway wax yaran bay ahay milyonaadkii waxay ku wareegeen Djibouti iyo Berbera oo dabcan ay isleeyeen marka iyada ah way idin ka raqiisan yihiin khilaafkooda horta barta dekada ama ka soo bilowday baadi ma iyo waxan iyo salaam basi iyo dhulkan waa marka dambe la isla soo jeeray dekadaas laga leexiyay oo cuna qabatay dhuunta la qabtay oo arkeen oo in la baqteenayo oo arkeen oo dhan walbana iyagu ay kaga wareegsan yihiin umbarta khilaafka bilowday cadhahu guri cadhooyinka weyn baa leeyahay waasaas cadhahu guri marnaq la isugu yiri xilligii 2000 dadkuna waxay u moodayaan laba tuulo ma intaas ruuxa u dhiman lahayd laba tuulo la isugu dagaalaynin Eritrea iyo Ethiopia cadhada hunguri yaa waligood colaadada ay ka socoto ka waxaysnay colaadii sidii halka u taagnay Ethiopia abiye waa kii qabsaday 2018 Eritrea siyaasi iyo nimankii waxay ku heshiiyeen Oromo Tigray waa caqabad kaliya hortaagan in dekadaha la isticmaalo xadkuna Tigray weeyaan kolka yaro canfar laga yimaado aan salka isla jaro sidii baa Tigray lagu baabi'iyay barbaaxadii ugu xumayd Eritrean baa u geystay dhan walba ka soo galeen Tigraygi markii salka la geeyay Oromadii baa hadana dulbil isfahmi waayay inta hawshu socotay oo qoladii abiy iyo qolihiisi waa la isfahmi waayay asiyaas wuxuu go'aansaday marka qolo walba horta inuu salka geeyo oo wax isaga kurkur dhaamaaba uu jiri waayo axmaar u soo dhisay marka axmaaradii markay meel gaadhay iyadii baa toon u kala jaftay way gadmi weyday asiyaas wuxuu qaatay Oromaan dhisay way ku xaartay TPLF salkan geeyay oo ujeedadii koobaad ahayd axmaaraan dhisay way socon weyday kay maxay marka hada wuxuu dhisay marka toban bay u kala jabtay wuxuu dib ugu soo noqday Tigraygi
isagu ma tigreegu dagaalkii waqooyiga Itoobiya Eritrea ahayd ciidii abi gacanta ugu weyn ba ka siisay inta Tigreesa loo laayo kiiba loo soo noqday طبعا قبل هنا كلا فوقين قبل هنا ما كلا فوقا ورمدينا way jabisay way la heshiisay saddex loo kala jabisay iyaga iska hor keentay inay qoomiyadahan u tirtirmaan markay ku dhawaadeen ee noqotay in Eritrea hoos loo lahaa hay asasuu kale nimayo xaad soo walaalaysan sidii iyada meeylaysan sidii waagi dagadi halkii ay soo bilaawday waraan ogolahay wax walba waan ogolahay iyagii baa la heshiisiyay hadda kuwe Tigreega iyagoo labada garab u kala jabiyay iyo caalamkii soo waxeeyay inay isku soo dhawaadaan asiyaas baa qayb ka ah iyagii asiyaasna hoosta wax iskaga ogi Oromadii iyo mar kastaba asiyaasna way sii kala durkayaan Oromadii marka waxay sameysay waa tab soo daabacday intana Oromada gaadhin dagaalkii Tigreega iyo Etoobiyada kale ama Oromada asiyaas waa kii inta aragtay oo gumaad u geystay Soomaa wuxuu yiri asiyaas soo inaan nimankan baabiyo martay abiyo hadi sabab ku soo dhawaad waxa la waxad u leedahay oo dhan xaga Soomaali xagan ka gal xagay waxa la wuxuu hub lahaa wala soo galiyo hub culus taanki balaayo wax la Itoobiya ruux un heyd iskaga oran lahay xagga Eritrea la galiyo bartanka markuu u geeyay waa kii heshiiskii dhacay Pretoria hubkiina xagu yaala Eritrea ku dhaxeela yaa soo bixin marka iyaro ciidan oo qaawan baa la yiraahdo iska tag ab taangi oo dhan ab jin oo dhan ab gurguurto oo dhan ab BM oo dhan xagii baa la geeyay hubkii marka hubkii waxa la wareegay Eritrea waa sir hub adduun la kala furto oo xabad oo dhicin lagu kala furto kii u badnaa yuu ahaa halkii baa lagu wareegay tii colaadii baa si abiye mana hadli karo balaaya ku dhacday maradiisa ku gubatay hada ma shamradii ay u gubatay saasay ahay ninkii maradiisa ku gubatay mana hadli karo waa ninkii way dhacay ma dhihi karo kolka hore waxa maxaa geeyaa la dhihi moogta dagaalna ninkii kuma qaadi karo wax alla wuxuu sameeyo aan ooyay albaabka ay xidhu yiri halkii uu ku ooyay iyadoo tii ku jirto yuu booday Azerbaijan ba waxa laga soo gaday laba markab oo hub yaa gadanaya markab laba markab hubka abiya gadanaya ilaa uu hoogay uu baa uu xayray hay ma waxba dhaqaalo haysto laba markab hub gadan imaaraat nimi la jiraan dhaqaalo way mahay hay laba markab oo hub ah nooc kasta oo qori ah oo kuwa ugu casrisanaa ayuu soo xisb hay inay habaabeen iyo inay marinkooda ahayd mooyee badda Eritrea bashabi cid soo dirtay بدر تري مركز شبيدين ردري أنا دوحي أوجلا وكسمر أنا بقى واحد كل عمي واحد كلامه أولو واحد توبي بسعود أولو توبي بسعود هذا ولا زورج الله هذه مركب دكتور جستين حسب على الدرو أذربيجان حسب ما تجي سفر كيس قدام بي وكيل أذربيجان مركب يورث تجي مركب يورث تجي ها تطبع وحيل هاي مدحوينها أذربيجان باوحو حامد حوين كحوين وإسلامتيس waxaa wasiir gaashaan dhigo wiilkiis waxa ka qoyskiisa dawladda intaas ka soo baran bay lahaayeen waxba kama jirin hubkii buu erga ka ah ninka la yiraahdo Ethiopia lacagta bay naga bixisay anagoo Soomaaliya lahayn Azerbaijan hubkii balse uu naga dabay Ethiopia hubka gaatay aba joogtay Ethiopia ma ilaha hadasho Azerbaijan Ethiopia hadda yeelatay ku cadaato in iska leexsan mooyeen Eritrea bidii oo soo xaynayso ku sii dhigi waa in shaambad Soomaaliya ah oo in Eritrea in Ethiopia Soomaali u gadeysay ah waa in meesha hubka Soomaaliya lahayd hubka Soomaaliya lahayd Ethiopia ay u kala mukhallasaysay uun abi ma asiyaas marka waxa ma gala asiyaas wuxuu yiraahday haye oo Soomaaliya lahayd ma aha haye waa sax gacana ma ku jiraan haye uu la dagay baan hubka haye hubkii inuu Tigreey wax ka soo gaadhina waa la sheegay arinta khatartiina meeshaas ka dhacday Eritrea marka Ethiopia marka waa shirkii meeshii Raila laga adkaaday shirkii waagi dhaweyd ka dhacay ay midowga Afrika irsoo ka shirkii dhacay mihii shirka la qaban qaabinayay maab bay Ethiopia soo baahisay tan ay kala qariirada bay soo saartay waa tii la ogaa qariiradii ay soo saartay Soomaaliyana way ku gaftay oo dhul bay qaadatay fara badan Soomaaliland wadan bay ka dhigtay inta kale adu meel bay bad caga ka gelisay iyadu Ethiopia iyo meel bad kaga dartay Eritrea iyadana meel bay ku xad gudubtay oo dekad ilaa iyo dekadii Asab ay ku darsatay Soomaaliya iyadu de moogtahay waxaas waxa ma aragtay Eritrea isla markii warba ka soo saartay ay leedahay sida ugu dhaqsaha badan warka gaftaalka maapka gafka ay sameysay qoladaasi waa in raal gelin ka bixisaa
mayna Ethiopia hawshii ka hadleen walo maabkii waa la saaray la lahaa haddana hawshii aad loogama hadlin tii ay kala fadhiyaan iyo xaaladda Ethiopia iyo Eritrea haddana sii xumaatay wararka hadda soo baxaya hadda maxaa cusub marka wararka hadda soo baxaya waxa weeye khilaaf ka bilowday maabkii ay baahiyeen Ethiopiaanku ee Soomaaliya iyo xadgudubka ku ahaa Eritrea in uu sababay in safaaradii Addis Ababa ku taallay Eritrea ay lahayd ay u yeedhay xarkeedii xirxirato oo ay la baxay yeerisba marka waa la xidhay gabigeeda waa la xidhaya gabigeeda waa la xidhaya albaabka la iska taagaya dagaal baan loo diyaar garoobayaa hadii la xidho marka macnaha xagga diblomaasiyadda marka la fiiriyo haduu laba dal khilaaf soo kala dhaxgalo oo ay noqoto dal inuu safaaradii uu dalka kale ku lahaa albaabada u laabo maxaa xigi kara marka xabad weligoodba intay safaarad kala furtaan baad kala xidhan jireen xabad dabada isu gelin jireen marka xabad baa xigi diyaar garow dagaal oo adagna uu socdaa xigay ka socdaa Ethiopia Eritrea dhaxdeeda Ethiopia laba jeer bay dhacantay hub bay waliba u dhacantay way caydhowday qash xataa waxa iskaga sii ku soo ordo malaha ciidanka federaalka Ethiopia la sheegayo waa ciidan hadda qoomiyado kala baxay Eritrea oo Tigray wadata iska daa meel kale aroor bay goday ka qaday aroor darif soo tiraado orom cilmiisu orom iyada ka badisay talaabadeed ka dheeraysay naajoog la kari hormar naag ba marka naajoog hawda سمعوا عورما النقلاوي magaca dhadiga hagoyde المسلمين اللي ويليهين nimanka Eritreanka nimanka la yiraahdo Tigrayga waa kii dagaalkii ku dhacay Eritrea ay qaybta weyn ka qaatay say markay isu aamini karaan Eritrea iyo waxa weeye Tigray khilaafkoodu khilaaf weyn ma ahayn mid isira ma ahayn mid diin ku salaysan ma ahayn mid qaacid kale ku salaysan ma ahayn mid dhul ku salaysan ma ahayn huuyaha buu ahaa arahu guri bay ahayd dekadaas ma ka adeegan Ethiopia ha oo maya iyo waan galeena inta aan baahay khilaaf kale oo jiray ma jirin Eritrea marka iyo Tigraygan la leeyahay caqabad ba isku yihiin Ethiopia wada baahan ee dhuunta inay Eritrea u noqoto ay rabtay ee Tigraygu ku hortaagnaayeen Eritrea waxay aaminsan tahay marka Tigray inuu yahay cunaha ninka qabtay ee lacagtii nagfad ahayd maxaan ku dhahay dhulka geeyay ee Eritrea cayd ka dhigay hoolama ah adduunka ninkii marka nooca aaminsanaa hadii Tigraygi uu ogolaado warwaadiga adkaatay waadi burburisay waadi dishay waadi silcisay nag baad iga dhigtay maantana nin ka dhaama ma hay inaga dad isugu xigna dakad baad sheegaysaa kurtigeena wada qaado oramada oo iga caduu yiraahdo kana walba ku qaba hadii qoomiyad lala shaqeyn Ethiopia ana ugu wada mid baan ku yiri inaga Soomaaliya islaan Tigray soo xasino wargeysanin cid kale oo dhanba ka khatar badan xamaara ka khatar badan orama ka khatar badan Tigray aan ku sheego Tigray wuu ina gumaaday waan ognahay inaguna waan leeynay isna wada leeynay wuxuu bartan uu geynay meena u jiif isaga ina daan naasay wanaag gardarna ma ooyeyno isbana hada isdagaasheen xabad indhax martay inaad ooydo ma aha way dilayay in la taagna tama war shalay saasaan isku hay maanta maxaa isku noqon karaa maanta maxaa ku wada shaqeyn karnaa war cad weeyo rag lagu yaqaan Soomaa Tigray tuulaada taa kuma doolay kuma soo socdo orama laakiin inta ku rarto ay kugu soo guurtay geedgeed isu ka istaagtay adiga dhanba ku baqteenaysa cadowsan oo adduunka jira orama inaga markaan ay deegaanahan ma jiro orama in la iska celiyo gumaqaya soo garan waan ku weydiiyay tan hadda la leeyahay abaabul ama diyaargarow xoogan oo ciidan baa ka socda gudaha Eritrea marka waxay noqonaysaa in isu tuurasho mise cabsi baa jirta in daal qarxi karo warkan in safaaradda la qaaday haduu sida run ku yahay oo ayna ahayn qodin la qodinayo oo sida run ku yahay in safaaradda la qaaday dagaal uu socdaa dagaalkan Ethiopia uma tawar haynin Eritrea waa hore bilowday dugsiyada tababarka markay u furtay axmaarada 17 markay difcadda axmaarada uga soo saaraysay markii la alamaatay iyo ka baxay la yiri maxaan ku dhahay goboladii axmaarada iyo Tigrayga ay ka haysteen raay iyo baashi ay diideen inay ka baxaan markii maxaan ku dhahay hubkii Eritrea Ethiopia ay lahayd oo Ethiopia la dhaxgeeyay ay tiri igama noqonaya aniga ana le ay taariikh Eritrean ku wada dhajisatay sidii iyadoo dekad kala soo degtay Eritrea xilligaas ay dagaalka bilowday Ethiopia uma dhiiga ka galgalinaynin oo aan dagaal hadda waxba iskaga day karin oo wixii Eritrea dagaalku ay ku jirtaa Ethiopia hadii ay inuu tabar hayso oo ay in un hayd iska dhig dagaalku uu socdaay
safaaradda markii la qaaday ama ha goojiso goojo dhabar ka saarto oo Soomaaliyadan iskaga galgalanaysa maabkeeda kolba si ka dhigaysay moodaysaa maabkii ay ku xasitay raaligelin ka bixiso ama